telefonka noo suurta gashay in aanu ku wareysano wasiirka wasaaradda dhaqanka diinta iyo arrimaha awqaafta ee dawladda Djibouti Aden Hassan Aden kaasi oo ku tagay socdaal wadanka Maraykanka kaasi oo laga hadlayay arrimaha diimaha sidoo kale waxa wareysigani oo qaybo badan taabanaya aynu kaga hadli doonaa kulankiisii oo ku tagay dawladda Soomaaliya iyo waliba magaalada madaxdeeda Muqdisho bal ugu horeynba wasiir waxaan jeclaan lahayn in aad warbixin naga siiso socdaalkii aad ku tagtay aqalka cad ee looga taliyo Maraykanka iyo ujeedadiisu wixii ay daaranayd Maraykanku waxay qaban qaadiyeen barnaamij bishan caalami ah oo laga hadlayo lagana tashanayay argagixisada ama xajirka gacanka hadalka ah ama xajirka maxalliga dilku heliyo taas oo runtii waayadan dambe dad fara badan ay fahmaan diinta islaamka iyo xajirnimada inay wax walaala ay yihiin ama diinta islaamka ay tahay sal xajirnimada arrintaasi ayaa dowladda Maraykanka waxay jeclaatay ama damacday inay kala tashato hogaamiyaasha dunida muslimka gaar ahaan kuwa diinta ku xeegan haddii ay tahay dowladda haddii ay tahay aqoon-yahano iyo xeeldheerayaal iyo haddii ay tahay bulshada rayidka ee muslimka marka waxaa isugu yimid 65 dal iyo dowladda Maraykanka marka anigu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Maraykanka ayaa shaqaale diray inaan ka qayb galo kulanka Djibouti oo xubin lafdabar oo laga maarmaan ah marka la joogo la dagaalanka argagixisada iyo degenaanshaha gobolka Geeska Afrika. Inta waxyaabihii aad ka wada hadasheen markaasi maxay ahayd? waxaan la kulanay horta shirkaasi waxaa mas'uuliyay furayna madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama waxaana shirkooyinkiisa hayay saddex cisho muhiimka ah oo socday 8 bisha February 2015 ilaa 2020 wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa shirkooyinka gacanta ku hayay waxaana si guud looga wada hadlayay dabeecadda ay leedahay argagixisanimadu waxa ay tahay sababaha keena iyo sida loo daweeyo waxaana ugu muhiimsanaa wixii ka soo baxay aan oran karna lasana qaatay madaxweynaha Maraykankuna uu markuu hadlayay carabka ku adkeeyay argagixisadu inaanay diin lahayn inaanay dhaqan lahayn aan midab iyo rays ama qolo lahayn oo ay tahay argagixisadu dabac xun oo dhaqan xun oo cid kasta oo adduunka diinta doonta haysato dalkay doontana kasoo jeedo dowladda doontana hadalka ayaan inay argagixis noqon karto marka waxaa aad looga doortay dadka xajirka ah inay muslimiin yihiin oo islaamnimada iyo laysku qaldo argagixisnimo inta sidaa arisaana inay ku dheedo maaragtay xajir ah iyana laysku raacay qodobkaasi marka laga yimaado qodobka labaad oo muhiimka ahaa wuxuu ahaa in la dagaalanka argagixisada iyo xajirnimada aanay dowlad keli ah dowladdeedu intay doontaan ahaatee inaanay ka adkaan karin kana guuleysan karin inaanay lagaga guuleysan karin xajirnimada iyo argagixisada iyadan iyo xuduudin la jiray inay tahay inay dunidu iska kaashato qaaradaha kala duwan ku baahsan inay iska kaashadaan dowladaha bulshada rayidka aqoon-yahanka culamada diinka saxaafadda iyo meediyaha iyo ganacsatada in dhinaca lagu soo wada jeesto la dagaalanka xajirnimada iyo argagixisada hubeysan
واتهي سلاش تنبول ويديسي محمد كلامي كاركا أو من المسؤولين مريكانكا يحاولون سنة كنت بعمل من كأوقع يسمى وزارة العلمية ببدأ مسلمة من ضمن يحوجوا شجرة مسلمة من يحضر شارع زفار آخر في سنة باكستان من كعصر كمية عدد المسؤولين كالعلماء هيك حيوية صيفة من الإسلام كوابا عندنا سوي قارشة تعريض كتتسلم طلب أفريقيا المدير أفريقيا وحيد صارم Maraykanka Shir samaysigu xaaladda geeska Afrika iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan argagixisada ay u hayaan al-shabaab iyo kuwa yemenka dagaalama halista ay leedahay in la furaydsado arrintaas argagixisnimada waxaa kaloo ka sheekaysanay Djibouti iyo khaliijka ka ciyaarto deegaanka gobolka iyo xasiloonidiisa la dagaalanka argagixisada iyo waxaad is leedahay way iska bedeli doonaan fikirka kadib shirkaasi aad laga soo baxay qodobadaasi ka soo baxay kadib maxaad is leedahay wuu iska bedeli doonaa fikirka wadaadada Djibouti iyo ka guud ahaan dunida islaamka واتهي waxaad waraysiyo ku sheegtay in madaxweynaha Djibouti uu ka fikirayo qorshe cusub oo lagu la macaamilayo dhalinyarada shabaab ka soo baxda muxuu yahay qorshahaasi ما دلوقتي الشباب كسر بحر محمد يسوي
فكرة مدحوينها وجمهورية جيبوتي ده والشرع الشباب يقرأ من يقرأها عن كسرها وعند كسر وبعد هذا لكن كود أهم لما تحاول أن تسمي جيبوتي وحالات معطلة ولما هو رجل أسلام الجلال المستوى أي بعثان حسرة من الإسلام في الصحراء ومن بسجد عليه الصلاة والسلام شنة وقرأ وجود فاتح أوسط الله من المنورة الكريم الإسلام في الصحراء زيادة إلى معناه إلى حباطهم ولما جبوتي جيد توفيق قاعدته وكاشن وعليه بكيف فاتح التجارة لنا والشكل استبقى وخفت ما يمثلنا استعمل محاولة لتعد بقين كل أفكارنا marka xaruntaasi maxay qaban doontaa وحا عدد هيسان بشي سحرة مع الواقع وشي صحي وصوانك قلرات ما بريرتا كسرنا حتى أربو كشي من هذا أنا أعتقد أن يستفسر في كامل السواق أكثر بحيث أن ذلك المقام لبلاش التشتير لبلاش الوارتنا حيث لا يكون من العيون أنا أعرف أن لقطيق كده أنا حسنوها يكون العيون إن عدد عليا لقطيق يتنا ملاش يكون مقدام يعني وحيطريق وحيط حيث waatay wasiir waad mahadsantahay